geesta kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Yaasin Xaaji Maxamed Xeer Faratoon isaguna warbaahinta kula hadlay magaalada Nairobi ayaa sheegay in shirkaasi uu ahaa mid loo ballansanaa inay ku kulmaan mas'uuliyiinta kala socda wadamada Soomaaliya iyo Soomaaliya balse dowladda federaalka Soomaaliya ay ka muqurtay shirkaasi isla markaasina beeshii caalamka ay ka soo qayb gashay shirkaasi ay Soomaaliland halkaas ay ugu bandhigtay mabda'eega waxaana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland u sababeeyay maqnaashaha dowladda Soomaaliya ay ka maqnaatay shirkaasi xiisada siyaasadeed ee ka wadamada Soomaaliya iyo Kenya wasiirka arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri Kenya aniga iyo wafti laba nin oo kale ay ka mid yihiin baa halkan nimi waxaanu noo wada nimi casuumadna loo soo fidiyay oo ku saabsan Soomaaliya iyo Somaliland sidii ay u wada hadli lahaayeen khilaafka ay uga wada hadli lahaayeen iyo labadooda dal sidii xiriirkoodii ay meel xiriirkii ay uga wada hadli lahaayeen saaka waxa xalay waxaanu ku saaxanay in shirkaas saaka bilaabmayo tana maanta inuu bilaabmo saaka 9 subaxnimo inuu hodeel Windsor la yiraahdo magaalada Nairobi ku yaala ka bilaabmo waa tagnay waftigayagii Soomaaliland ka socday waftigii Soomaaliya ka socdayna way yimaadeen xalayto 4 nin oo xamar laga soo diray baa yimi oo maxay sita de amarkii iyo maxay mas'alaadii ay ku masilayeen dalka Soomaaliya 4 nin oo wata ayaa yimi saaka markaanu soo toosnay ayaa naloo yimi hay'adda shirka qaban qaabanaysa baa soo wargelisay waxay tiri shirkii Soomaaliya ka soo qayb gali mayso Soomaaliya way nala soo hadashay go'aan bay dawladda ka soo baxay Soomaaliya waxay soo sheegtay inaan shirka ka qayb galin marka anagu diyaar baan nahay shirkaan u soo diyaar garoonay waxaan markaa weydiinay hay'adii wax sababa oo ay sidaa u yeeshay waxay noogu jawaabtay ilaa imika garan mayno shirka anagu markaa sidii aan ugu soo diyaar garoonay ayaanu kaga qayb qaadanay shirka waxa ka soo qayb galay dad badan oo ka tirsan international community-ga ama caalamka ka tirsan safaarado xafiisyo goboleedo diblomaasiyiin aad u fara badan hay'ado badan oo ay ka mid yihiin IGAD iyo EU-da wadamada yimi waxaa ka mid ah ee u soo dirsaday maxaato saraa dalalka ay ka mid yihiin Sweden Ingiriiska Turkiga Switzerland waxay ahaayeen caalam ku soo tala galay in labada dal ee Soomaaliya iyo Somaliland wada hadalkood sidii loo bilaabi lahaa ama ay suurto gali lahayd ama dal waliba mowqifka uu taagay arrintaas sidii loo gali lahaa ee uu rabo in loo galo inuu soo bandhigo saasay u wada yimaadeen naxdin iyo qudadkoodii iyo kala qabad bay ku noqotay waxay qaadan kari waayeen oo la yaabeen bay ku noqotay anagu markaa taayadii baanu ka wadanay shirkii waa la soo fadhiistay Soomaaliya ma soo fadhiisan Somaliland baanu ku soo fadhiisanay anagu baana dhan dhageystay caalamkuna anagu markii saan u arkanay waxaanu arkanay in anagu sidii haboonayd ee loo baahnaa aanu yeelay marar dambe waxaa nagu soo oo shirka laga soo baxay waxaana soo gaaraysay in social media iyo dawladdaas ay ku soo saartay warar ku soo saartay Soomaaliya ay leedahay waxaanu shirka u imaan weynay Kenya ayaanu isku xunnahay oo Kenya aanu u aragnaa inaanay dhexdhexaad halka lagu qabanayo shirka inaanay arrintan dhexdhexaad ka noqon Kenya anaga nama heshiimaanay ayay ahayd wadamo caalami ah ayaa meesha isugu yimi oo rabay inay arrintan galaan oo waxa imika la weydiinayaana waxa ahayd sidaanu diyaarka ugu nahay in wada hadal la wada galo ayuu baahay waxa maanta la isweydiinayay iyo qololo mowqifka aragtay sida uu aragto in dhexdhexaadin lagu gali karo Nagib Abdullah Hawla telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa.